waxaa maanta caasimadda Somaliland ee Hargeysa laga dhagax dhigay cisbitaal casri ah kaas oo ay yeelan doonaan ciidamada militariga Somaliland waxaana si wada jira u dhagax dhigay taliyaha ciidamada Somaliland Nuux Taani wasiirka gaashaandhigga Somaliland Ciise Axmed Yuusuf iyo wasiirka maaliyadda Somaliland Yuusuf Maxamuud Cabdi waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan mudanayaal halkani waxa weeyaan cisbitaalkii xooga Somaliland ama ciidamada Somaliland qaybtii dhisreed maahan waa qaybtii loo kordhin lahaa munaasabadan haddana mudanayaal waxaan maanta u nimid sidii loo dhagax dhigi lahaa munaasabadda qaybta cisbitaalka ka mid ah wax weynna way ka tari doontaa ciidamada caafimaadkooda waayo qalabkii haddii X-ray tahay haddii ECG ay tahay qalabkiiba uu noo yaalaa waanu dadan yahay halkii la dhigi lahaa baa naga maqnayd halkiina waa halkan maanta mudanayaal noo dhagax dhigi doontaan insha Allah haddii ilaahay yidhaaho dawladda tan waxaa ka go'an laba arrimood ayaa halbowlow ah kow dhisidda ciidanka qaranka ee kala duwan afarta ciidan qaranku uu leeyahay afartaba way ka go'an tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi in la dhiso waxa naga go'an oo siyaasadeedu ay tahay daryeelka noloshooda iyo naftooda kordhinta garaadkooda daryeelka agabka guud ee ciidanka qaranka uu baahan yahay kala duwan waxaan doonaynaa cisbitaalka sida madaxweynuhu uu doonayo kana go'an ee ah cisbitaalka maanta halkan aynu ka yeegleelna inuu noqdo ka ugu casrisan jamhuuriyadda Somaliland waa dabaqyo noqon doona imaka dabaqa koobaad ee foundationka ah first groundka ayaan sameyn doonaa sanadka dambana ka labaad baan dhisaynaa saddexaad ugu yaraan 4 dabaq oo waafiya inuu noqdo injineeradu way joogaan waan u hambalyeeynaa cisbitaalku runta waa cisbitaal shaqeeya oo dhammaan inta badan baahiyo badan oo ciidanku qabo baa lagu daboolaa halka laakiin kuma filla qalab badan oo runtii casri ah baa yaalo oo aan makaan haysan si taliyo ka dhawaajiyay maanta waxaa farxad inoo ah ballanqaadkii iyo horumarinta ciidankana macnaha ka muuqda iyo waxyaalo badan horan la soo qabtay runtii inaan maanta halka saaga u taaganahay dhagax dhiga kordhinta ma cisbitaal cusub laakiin kordhinta cisbitaalkii hore u jiray ee halka sida wasiirku ka dhawaajiyay cisbitaal waliba aan aaminsanahay inuu fishinkeyga inuu sii gaaro ilaa 7 dabaq noqdo injineeradu way maqlayaan injineerku ka mid taagan asaas baad sameynaysaa saaga halka laga dhagax dhigaynaa qaadi kara ilaa 7 dabaq ba afar waa xumay wasiirku waa xaga budgetku ka soo celinaya ilaa 7 dabaq insha Allah weel weyn ba wax lagu baryaabaa leeyahay marka insha Allah tamarteena waynu gaaraynaa وعلي آدن در وررك تلفزيون كون كابل مقالة Hargeysa